waa kaamkii ugu horeeyay la qabto magaalada Muqdisho ee qabatay hay'adda UNDP iyo dawladda federaalka Soomaaliya. Kaamkan ujeedada ugu weyn oo loogu talagalay waxa in dadka dhalinyarada Soomaaliyeed oo fikrada kala duwan leh in ay hal meel isku keeno la xalliyo dhibaatada ka taagan caana yarida iyo dhibaatada ka taagan calafka xoolaha ay helaan. aadaan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo barnaamijkan waxaan rajaynayaa horumarka Soomaaliya taabanaysa mid xigtana dhalinyarada faa'iido ay u tahay waana shaqo abuur waxaan aad ugu faraxsanahay in ay tahay challenge-ga maanta oo Soomaaliya ka jiro in Soomaalideena dhalinyaradena ay maanta xalinayaan la rajaynaynaa insha Allah fikradeena ku aadan in ay noqdaan kuwa wax ku oo leh bulshadana wax tara ugu dambeynna noqdaan kuwa aragti la hirgeliyo oo la qaato oo suuqyada magaalada Muqdisho ka shaqeyn doona insha Allah. We were here for 1 week working using design thinking where the teams worked with the communities in the dairy industry to really understand their problems and develop innovative ideas such as cheese, yogurt production, how to produce fodder during drought period, cooling and storage system and packaging for milk. So really amazing ideas and this was the whole goal of the camp.